السلام عليكم وجنال كينيكي سوم كوسو دودا موقالكنا مانتا بلس انتا نبيلا موقالكنا فضلا هدان نقصوب تاي سبسكرايب لغن بلالكنا فرو intii lagu guda jiray bandhigii lagu daahfurayay koobka adduunka ee ka bilowday dalka Qatar waxa ka mid ah martidii meesha lagu casuumay inay wax ka jeediyaan atooraha caanka ah ee Morgan Freeman isaga iyo wiilka yar ee qaariga ah Qanim Al-Miftah ayaana sameeyay bandhig soo jiidasho leh oo haday sameynta koobka adduunka iyo ciyaartaba Morgan Freeman uu wiilka qaariga weydiiyay su'aal sidan u dhacaysa dunida waxay u muuqataa inay si kala fogaanayso kalana qaybsamayso sidee wadamo badan luqado iyo dhaqamo isugu imaan karaan si wada jir ah haddii ay jirto hal wado oo lagu aqbalo wiilka yar ee Qanim Al-Miftah wuxuu uga jawaabay aayadan ajiibka ah يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم دادو waxaan idinka abuurnay labiyo dhadig waxaana idinka yeelnay shoob iyo qabiilo si aad isu garataan kan alle agtiis ugu karaamo badan waa kan idinku dhowrsan Morgan Freeman aad ayuu u khashuucay kalaamka Ilaahay intii uu wiilka yar akhrinayay inta kadib Morgan Freeman wuxuu leeyahay waan arki karaa waxa aad meesha ku soo bandhigtay wuxuu aad uga weyn yahay waxa ina kala qaybiyay bandhigan oo kale horay ugama dheen koobka adduunka sida farshaxanimada leh ee loo soo sameeyay muuqaalka wiilka yar iyo atooraha caanka ah Morgan Freeman iyo sida ay u soo jiidatay dhammaan bulshooyinka dunida gaar ahaan jawaabta wiilka ee aayada uu kaga jawaabay su'aashii Morgan